بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ugu horeyn dadweynaha iyo maamulka masaajidka waa mahad celinaya bacd Allah subxaanahu wa tacaala intaa kadib xilli abaareed baynu ku jirnaa ilaahay subxaanahu wa tacaala roob khayr qaba oo caamo dadkaasi waxaan rabaa caawa waxaad taqaaneen inaan idin sheego ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa wuxuu ku tilmaamayaa wadakir fa ina dikra tanfacu lmu'miniin waani ama xasuusi baa la yidhi dadka mu'miniinta ah xasuusintiiyo waanadaasi dadka mu'minkaa bay wax tartaa diintu ma aha macluumaad tiro badan oo la kororsado ee waxa weeyaan wixii laysu sheegay oo lagu dhaqmo waxa weeyaan qofka muslimka oo hal uu halmaamay dib loo xasuusiyo si ay uga mid noqoto noloshiisa caadiga ah in kelmaddan caawa rabo inaan idhaahdaa waxay ku saabsiisan tahay aafa min aafaati lisaan dhib ka mida dhibka carabka oo nabigu calayhi salaatu wasalaam si guud wuxuu u tilmaamayaa almuslimu man salima almuslimuuna min lisaani wa yadi muslimkaba waxaa la yidhaahdaa qofka dadku carabkiisa iyo gacantiisa ka nabad galaan waxaa kaloo nabigu uu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam laba ciddii ii ballan qaada anna jannaan u ballan qaadayaa buu nabigu yihi ciddii ii ballan qaada inuu ilaaliyo carabkiisa iyo farjigiisa labadaa qofkii ilaaliya aniguna waxaan u ballan qaadayaa buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam janno waxa uu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam dadku hadallada ay sheegaan marar bay hadal yidhaahdaan aanay u fiirsanin hadalkaasi aanu u fiirsanin bariyo galbeed intay isu jiraan in leeg ayuu naarta hoos ugu ridaa qofku markuu hadlayay waa iska kaftamayey wuxuu qiimo badan ma siinaynin laakiin cinda allaahi siduu shayga kale ugu weyn yahay mashriq iyo maqribi intay isu jirto in leeg buu naarta hoos u gala waa kii mucaadi ibnu jabal saxaabiga la yidhahdo yidhi ilaahay rasuulkiisii oo waxaanu iskaga hadlayno miyaa naloo qabanaya mucaadow hooyada kaa goblantay buu nabigu yihi oo dadba miyay wejiga naar ugu dhacan waxay ku hadleen mooyaane waxay ku hadlayaan ayaa ah buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam waxaa naarta dadka ku fogeeya sidaa ogeed waxaan rabo inaan wax ka tilmaamaa waxa weeyaan mas'ala aada u taqaani laakiin haddana laga gaban waayey waan rabno inaynu ku celcelino waa dadka wax ka sheegiisa iyo xamashadiisa imika waxa laga yaabaaba inaynu haysano akhbaar siyaasiya inay tahay see maxaa jira iyo waxaa jira la sheegaya in dadka magaalada joogo dhan la xanto marka la xanto ayay noqonaysaa khabarkii siyaasiga aynu isu sheegaynay waxaynu ka warramayno intooda ugu badani waa dembi sidaa awgeed ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamayaa bulshada muslimka ah inay noqdo bulsho caafimaad qabta caafimaad qabku wuxuu ka bilaabmaa dee dadku inuu carabkaaga iyo gacantaada ka nabad galo meeshii gacantaada laga nabadgeli waayo colaad baa taalla iyo dirir meeshii carabkaaga laga nabadgeli waayana dee cadho iyo ismaag iyo colaad kalun baa taalla sida awgeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabada wuxuu tilmaamay war horta xanta ma taqaanin buu yidhi atadruuna ma alghiiba xanta ma taqaanin buu yidhi
dhaqanka saxaabada in badan waxaa ka mid ahaa si ay nebiga cilmi uga kororsadaan wax kastoo xataa ay wax ka ogyihiin inay yidhaahdaan allahu warasuuluhu aclam alliya rasuulkiisaa og markuu ku yidhi xanta ma taqaanin bay yidhahdeen ilaah iyo rasuulkiisaa garan wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam dikruka akhaaka bima yakrah waa walaalkaa oo aada ku sheegto waxuu nacayo gaar ahaan waxay yidhahdeen kiiba waxa loogu bixiyey waa isagoo kaa maqan marka aada sheegto waxa uu nacayo waxa uu nacayaa wixii doonaysaba ha noqoto waxaa dhici karta waxaad dad qofnimadiisa ka sheegaysa inay tahay waxaa dhici karta waxaad diintiisa ka sheegaysa inay tahay waxaa dhici karta waxaad adduunkiisa ka sheegaysa inay tahay waxaa dhici karta waxaad dhismihiisa iyo qaabka jirhkiisa ilaahay u abuuray aad ka sheegaysa inay tahay waxaa dhici karta waxaad akhlaaqdiisa ka sheegaysa inay tahay waxaad reerkiisa ka sheegaysa inay tahay baabku doonaha ku saabsanaada imaamu nawowi wuxuu leeyahy wax allaaliya wuxuu qofku karaahiyeysto ee isaga si uun xidhiidh ula leh aanu rabin in wax laga sheego wax ka sheegoodu waa xan buu leeyahy waxa aad kaga sheegaysaa ama carab ha noqdo ama tilmaam ha noqdo isha aad jebiso carabku aad ku muddo gacanta aad qaabkaad doonaysa u dheh dhammaantood waa xan buu leeyahy xataa waxay culammadu yidhaahdaan waxaa xana inta qofka la sheegay inaad tidhahda ilaahay ina cafiyo waa xan bay yidhaahdeen yacni ilaahay ina cafiyo umaad dan lihid bay leeyihiin inaad rabto cafwiga rabbiga inaad doonaysee waa duurxul aad u duurxilaysa bay leeyihiin qofkan wax laga sheegayo qofkan wax laga sheegayo ayaad u duurxulaysaa bay leeyihin iyo nas'alu llaha salaama iyo kullu dalik bay yidhaahdaan kiibaday ka tirsan yihin xantay ka tirsan yihin waxaa ka tirsan bay yidhaahdaan xanta inaad siiqatu tacajub u sheegto ama inaad ka murugaysantoo kale bal mu sidaa iyo sidaa yeelo yacni siduu yeelay baad duraysaa bay leeyihin miskiin hebel baa lagu yidhi waa caynkaa markaasaa tihi miskiin miskiinnimadan aad sheegaysa maaha inaad leedahay waa nin iska miskiin oo ilaah yaqaana ee waxa weeyaan waa duurxul bay leeyihin aada u duurxulayso walidaalik wax kasta oo noqon kara bay leeyihiin qofku inuu naco in lagu yidhaahdo oo wax ka sheegahay wuxuu noqonayaa nooc xanta ka mid ah culammadu markay baabkan ka warramayaan saddex masale ay kala saaraan oo luqada carbeed la yidhahdo alghiiba iyo albuhtaan iyo alifk qolaa waxay yidhaahdeen nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay rasuulkiisa iyo waxaanaanu ku sheegayna hadduu yahayna isagoo maqan baad wax ka sheegtay laakiin waxaad ka sheegaysa wuu yahay laakiin muu rabo in laga sheego wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu yahay had maqan ka sheegto oo aanu rabin faqad iqtabta waad xamatay haddii aanu ahaynna faqad bahadta buu nebigu yidhi waa ku been abuuratay marka haddaanu ahaynba iyadu waa been abuurad waa dembi ka sii weyn hadduu yahayna waad xamatay buu nebigu tilmaamaya xadiid culamadu ay ku tilmaamaan inuu xasan yahay ayaa waxa ay tilmaamaan isagoo nebigu fadhiyaa nin yimi dabeetana waxay ku yidhaahdeen nebiga calayhi salaatu wasalaam ninkii bay ka warramayaan laa yaakulu xataa yuطcam bay yidhaaheen walaa yarxal xataa yuraxalu lah wax ma cuno in la cunsiiyo mooyaane waxa la siiyo mooyaane wax kale ma cuno ma guuro ma rarto in loo raro mooyaane yacni ninkan dacfi liidashay rabaan inay u qariyaan ama caajisnimo iyo kaslaamnimo ay rabaan inay u qariyaan marka waxay leeyihin yani xataa naftiisa ma daryeela inaad wax siisa mooyaane wax cuni maayo bay idhaahdeen ama in loo raro mooyaane neefkiisa intuu fadhisiiyo kooraha saari maayo wixii uu u baahnaaye wuxuu rabaa in loo raro nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu uhi qad iqtabtumuuh waa xamateen markaasay yidhaahdeen inamaa xadaثnaa bima fiih
إلهي رسول كيسي وحو هاون بانو شيخنا إنك أنا ليزين ماذا يوحو وطا حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه من نقول أحاكو غفلا ولا لك وحو يهينات كشيك تاباكو غفلا عنو الربين ويوحانو هين هدات شيكتو يدو أذى ليرادة وبهتان والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا إلهي وحولاي قوة ضدك المؤمنين تأكل بيه يكون شيء يرق يضمر با بغير ما اكتسبوا وحاني كسبن وحاني هين كل شيء قواسي فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا قواسي يقول دنبي وين يبين أبورد وين بيحمبارين با ربي كنت المامية إذا صدح ذا الشيء هو نوع من الغيبة بيلي وحو يهو نعيين تكو شيكتو ور لغاقا الشيء يرارد خبينين تكو شيكتو يمد هذا ضغو بين أبورتين تشيكتو مركا أما هو غيبة أما هو إفك أما هو بهتان وحو بيلي باب كم يشهد هوسك ليه باب كان حكم كي سوا محي قرانك يا حديث باوحا كسار ارتين حاراني علماء بدنا ده اجماع بابا يسون نقليان ان مسلم كسكوا فقسيه علماء المسلمين تو ان اسكوا فقسيين ماشا سين انا مرنا بنانين امام النووي باسو نقلينيا بل جماهير العلماء وحي نقلينيان وحي سو غورينيان ان ذنوبته واوين كميت جماهير العلماء ساسay qabaan inay ذنوبته waaweyn kamid tahay إلهنا قرآن كيسا وحكو تلماميا ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله التواب الرحيم واربركين بركة كليو حمن با إلهي لي متكين ميو جعل يبا رب تلماميا هلب كولالكي وبختي ينعنه marka hore hilib bini aadam in la cuno bini aadamku ka yaqyaqsooda dadka hilibkiisa ma cuno mar labaad inuu walaalka noqdo waa ka sii darantay mar saddexaad inuu meyd yahay waa ka sii darantahay ilaahay wuxuu ku tilmaamay marka walaalka iyo meyda hilibkiisa inaad cunto miyaad jeceshahay waad nacaysaa baa rabbi tilmaamaya idan xantani noocaasay la mid sida walaalka iyo meyda hilibkiisa aanad u cunteen أياني أفعنين إن هذا وحمته إلهي وحلي ولا تلمزوا أنفسكم ورنا فينا عيبيننا مسلم هو نف واحد ولا كان مركز عيبي سواء حيلا متأدون نفت هذا عيبي ولا تنابزوا بالألقاب ورنا نيسها قروح ضبطنين هيسوي لنا بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون إلهي القرآن كوحينا وقلت الماما يدك وقالين لك والرميو ويل لكل همزة لمزة عذاب يهلاق يهوق وحوص قناضي متكسته وحن بدنا أويا همزقيا لمزكو ومتكسته عيب بدنا وحي كوكلا فرقيان علماء قاركود لبدا إري منا إنه يهي بالفعل منا باللسان إن إشاء مع عربك ما قابون أن هذا لهين هذا وحمنا يسوي حق ريسيد أما ما هين هذا عربك كو حمنا يسيد لما دواش كميت مركا وقفك يواد وحانو كرر لي حين أتكت الماما يسوي إلهي سبحانه وتعالى قوة وحكت الماما يا لينبذن في الحطمة بإلهي سوي يقول عرض جود يشرفته ده بيدومينين إلهي وحو قالين ده وحا لغو طوري دونا بالي لحطمة بربوريسة نار ليلادو نار بربوريسة اسبدتك شرفتي سو بربورين إلهي وحو لي نار ينوح بربوريسة أيو قالي دونا أيها الأحبة إلهي وحو لي ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بالنميم مناع للخير معتد هم مقلب با إلهي النبي يسكت المام يكون كستور دار بدنا أوليته أو عيب بدنا همازة تدك عيبية وحكشيجة نميمة ضيّ يسكت درك كشقية الهمازة هي المغتاب للناس بكفصرة
إلهي سبحانه وتعالى قرآن بدن بكت المامين ممنوعت نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام حجكي وحجي ود وقت دمنا أها سنة في السقالات ميلها أها لو قربوا خطبة دي سنوكا صدح ميلها خطبة دود وحا كتشرة مسألة مسلمين تكعل عليني يدو بيدا دان بقول كنا مسلم دad ka badan joogan ayuu weydiiyay warbishana ku jirtaan waa tuma meeshana joogtaan waa xagee su'aal caynkaas nabigu weydiinayay si uu u tanbiihiyay u soo jeestaan isla markaana xurmada waxa soo socda uu rabo inuu tilmaamo waxay u sheegeen beledkeenu beledullaahi alxaraam yahay bishu ashharul xurum inay tahay wararkaasay u sheegeen nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi fa inna dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum calaykum xaraamun ka xurmati yowmikum haada fii baladikum haada fii shahrikum haada war dhiiggiinna iyo xoolihiinna iyo cirdigiinna cirdiga waxaa la yidhaahdaa mawdicu dam bay yidhahdaan walmadx cirdiga waxaa la yidhaahdaa waa sharaftida qofka bini aadamka waa meesha ammaanta ama ceebayntu ay kaga dhacdo qofka bini aadamka nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam xajkaasi in 3 goor gaadhaysa ay khudbaddaa jeediyeen oo uu la hadlayo saxaabada oo 100 kun oo muslim oo meel taagan uu wacdinayo oo uu leeyahay war waxaa laga yaabaa sanadkan dabadeed inaynan meeshaan isugu iman lacalli laa alqaakum bacda caamikum haada lamanuu kulmin sanadkii dabadeed waa dardaaranku nebigu ka tegayay dardaarankaasi waxa weeyaan dadka inaad nabadgeliso qofka muslimka ah dhiiggiisa maalkiisa iyo sharaftadiisa waxa waxyeela dee carabka u badan waxa waxyeela waa xanta iyo wixii la halmaala waxa uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam ina min arba riba الاستطالة في عرض المسلم بغير حق الربا waxay noqonaa sharciga inay ku adagtay waa shayga ilaahay quraankiisa ku tilmaamay cid la timaada dagaal ha u diyaar garowdo hadaba nabigu wuxuu leeyahay ribooyinka ugu ribaysan waxa kamid ah kuwa ugu koreeya ribada waxa kamid ah الاستطالة في عرض المؤمن استطالة أي إطالة اللسان adigoo carabkaaga ku balballaadhiya qofka muslimka sharaftiisa bigayri xaqin ugu balballaadhiya oo marar yaroo kooban bay soo reebi doonaan culammadu oo ay yidhaahdaan waa mararkay bannaan tahay inaad wixii waxaa anfacaya inaad sheegto oo qudha waxaad qiyaasi kartaa nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo caaisha gabadh kaloo muslimada ay ku tidhi waa gaabanta hebelaayo waa gaabanta oo nebigu leeyahay weedhaad ku hadashay haddii badda lagu qaso way qasi lahayd haddii waxyaabahan midabka dooriya waxaa jira dee biyaha haddii wax midabka dooriya lagu rido inuu midabku isbedelo oo si kala badda aan dhan buu nebigu leeyahay haddii laga dhigi lahaa hadalkaaga wax midabka dooriya badda aan dhan bay doorin lahayd waxay tidhina waa maxay waa gaabantay bay tidhi waxay culammadu yidhaahdaan marka waxay tilmaamaysaa sida ay u adag tahay qof muslima in wax laga sheego weliba wax ka sheegaasi meelaan wax anfacayn inuu yihi nin baa zinaystay dabeetana uu toobad keenay dabeetana nebi maxamed buu yimi calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi halla rajmiyo waa la rajmiyey dadkii rajmiga ka soo noqda labaa wada hadlay oo mid baa wuxuu yidhi bal kaa eega inta ilaahay ceebtiisa asturay buu is asturi waayey ilaa iyo sida eyda loo garaacay sida eyda dhagax loogu dilay nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka inkastoo sanadkiisa culammadu ay leeyihin waa daciif waxa uu tilmaamayaa ninkaasi inuu ku tilmaamay wax aada u foolxun bakti intuu soo dulmariyey inuu yidhaahdo baktigaasuu lami cun dabeerka baktiyey ma kaa meel la cunaayo oo la leeyahy waxaa tidhi waa waxaas oo kale
waxaynu leenahay aayadda qur-aaniba dee waa macna ay tilmaamayso ayuha alaxiba wax diinta aynu ognay inay mamnuuc wadato reebantay baynu fudaydsanay ilaa soomaalidu ay dhahdaan xooluhuna waa cawsku nool dadkuna waa maxay waxaa laga dhigayba wax lagu nooliyay inay tahay xanta iyo waxa kani waxa nolosha ka mid oo fudud inay tahay baynu ugu maahmaahnay waana diinteeniyo aynu runtii meel weyn kaga dhacay waa intii yarayda ajarka ahayd ee salaada iyo soonka aad shaqaysatay oo aad cid kala siinayso maxaa ku bixiya dadku inay wax hantaan culamadu waxay idhahdaan kow ضعف الورع والإيمان dadku xalaal miiradnimadu ku yaraato iyo iimaankoo daciifa waayo waxay dhahdeen nabigu calayhi salaatu wasalaam caaisha markii beenta laga sheegay ayuu zaynab bintu jaxash u yimi zaynab caaisha waxay leedahay haweenku nebigu qabay waa gabadha qura ila loolami karaysay yacni quruxda iyo qabiilka iyo waxa marka la eego waa gabadha qura ila loolami karaysay dabeetana nebigu wuxuu weydiiyey arrintan waxba ma ka maqashay waxay tidhi yaa rasuula allahi axmi samci wa basari ilaahay rasuulkiisiiyo anigu ishayda iyo dhegtaydaba waa ilaashanaya casha waxaan khayr ahayn ka sheegi maaya bay tiri waa gabadha kale darra u ah lala qabo haweenka la wada qabana inta badan loo lama si uga dhaxeeya marka waa gabadha lala qabo oo gabadhii lala qabay weliba wax ceeba laga sheego magaalada aada ugu faafay markaasaa waxay leedahay anigu ishayda iyo dhegtaydaba waan ilaashanaya caaisha oo xadiidka ka warramaysaa waxay leedahay facasamaha allahu bilwarac bay tidhi gabadhaa ilaahay wuxuu ku badbaadiyey xalaal miiradnimadeedii dembi iska ilaalinteedii bay ku badbaaday bay leedahay iyadu halkay dad kale dabbaasheen ee galeen culammaduna waxay idhahdaan xalaalnimarnimada waxyaabaa ugu waaweyn waxa ka mida bay idhahdaan carabkaagu aada ilaaliso oo aada ka ilaaliso dunuubta tirada badan leh waxyaabaa dadka ku bixiya xanta waxaa ka mid a fadhiga oo lagu hagaajisto dadka wada fadhiya sheekooyinka dee fadhigay ku hagaajistaan laakiin kuwa ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa aakhiro inta naarta lagu guro inay odhan doonaan wa kunnaa nakhuudu maca alkhaa'idiin kuwa dhumbada warka un la wadun baanu anana sheekadaanu dacalkayga kaga jirnay nakhuudu maca alkhaa'idiin kuwa dabaalanaya kuwa dhumbanaya baanu la dhumbanayni nabiguna wuxuu leeyahy waman iltamasa rida annaasi bisakhat illaah wakalahu allahu ila annaas xadiidku inta uu ka dheeriyey wuxuu nabigu tilmaamayaa qofka ilaahay raalli geliyaan dadka cadhadooda u eegin ilaahay baa kaga filaada dadka cadhadooda iyo adagooda iyo dhibtooda ilaahay baa kaga filaada cagsiga qofka sameeyana ee maxay dadka inuu raalli geliyo ilaahay kaga cadhaysiiya dadka inuu raalli geliyo ilaahay kaga cadhaysiiya dadkaa loo wakiishaa buu nabigu tilmaamaya yacni dadkana agtooda hadhow iyagana badbaadi maysid adna markaagunbay kuu miisi doonaan dadadba dadka u miisto ilaahay wuxuu ina leeyahay fawaylun yowmaidin lilmukadibiin aladiina hum fii khawdin yalcabuun maalinta qiyaame halaag ba u sugnaaday kuwii beeniyey rabbigood ee waa maxay iyagoo cayaaraya wax kastaba baatilka dhumbanayay xanta waxyaabaha badiya waxaa ka mid ah cadho aada qof u qabto ama xaasidnimo ama wax la mid ah oo marka wax laga sheega aad maad istidhaahdo wax ka sheego sharaftidiisa hoos u dhig ama loolanka innaga waxaynu haysanaa hebel hebel maanta jacbu ku dhajiyey siyaasi hebel baa hadlay oo qoladaa jacbu ku dhajiyey uu ka cadhaysiin weeya waxaynu wadnoo dhami waana dembi u ila khayr maad sheegaynin
waxaad waday waa qof muslim oo laga cadhaysiiya buu ahaa waxay yidhahdaan waxyaabaha keena waxaa ka mid ah adduunye jacaylka iyo madax jacaylka xub dunya walxirsu cala suudud bay yidhahdaan adduunye jacayl iyo madaxnimo raadin oo qofka madaxnimada raadinaya wuxuu jecel yahay isaguna inay ammaantu ku ururto dadka kalena ceebahooda in banka lasoo wada dhigo si uu isagu u noqdo qofka mudan ee dadka agtooda mudan inta kalena inay ceebowdaa buu jecel yahay ayuha alaxiba waxaynu ka warramaynaa waa janno iyo naar kala doorashadooda inaad xagga cadaabka u kacdo iyo inaad xagga jannada u kacdo ilaahay cabsidiisa iyo xishood rabbi laga xishoodo ayaa keensada qofku carabkiisa inuu ilaashado ilaahay wuxuu leeyahay am yaxsabuuna أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون dadku ma waxay u malaynayaan inaanan maqlayn baa ilaahay yidhi waxay qarinayaan iyo waxay ku faqfaqayaanba waa maqlaynaa baa ilaahay leeyay kuwii aanu u dirayna ee malaa'igta ahaana waa qorayaan baa ilaahay leeyay subxaanahu wa tacaala nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadu wuxuu ku yidhi war ilaahay ka xishooda istaxyuu min allahi xaqa alxayaa war ilaahay ka xishooda xishoodku xaq u leeyahay markaasay dhahay ilaahay rasuulkiisiiyo rabbi waa ka xishoonaynaa walxamdu lilah bay dhahay inaa nastaxyi walxamdu lilah sidaa uma jeeda buu nebigu yidhi war madaxa iyo waxa uu koobo ilaaliya yacni dhegtaada iyo ishaada iyo kuwan ilaali caloosha iyo waxay weelayso ilaali buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ayuha alaxiba waxaad qiyaastaa uun markaad qofka xamanayso waa intii xasanaadka aada lahayd oo aada daadinaysa un intii ajarka lacagtaada ma qubi lahayd waa maya nina lacagta ma daadiyo oo lacagtiiyo ajarka iyoma qiimo badan lacagta waxaa laga yaabaa minis yaro adduunka wax ku fudaydiya inay noqoto ajarkuse adduunkana wuu fudaydiyaa aakhirana waa waxa keliya lagu badbaadayo sidaa awgeed buu nebigu wuxuu saxaabada ku yidhi war caydha ma taqaanin atadruuna man ilmuflis buu nebigu yihi caydha ma taqaanin qofka mufallaska qofka dee kacay ee caydhoobay waxay yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisiiyow caydha waxaanu u naqaanaa man laa dirhama lah walaa mataac ninkaan mood iyo nool toona haysanin baanu caydh u naqaanaa bay dhahay ninkaan mood iyo nool toona haysanin wuxuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam ninka caydha ama ninka kacay waxaa la yidhaahdaa waa ka aakhiro yimaada isagoo salaad soo sameeyey oo soo soomay oo zako soo bixiyey soo arkaanulislaamkii maaha wuxuu la yimi soom iyo salaad iyo zakuu nebigu tilmaamaya laakiin wuxuu kaloo yimi buu nebigu leeyahay isagoo kaa caayay oo kaa qadfay oo kaa maagay oo kaa xoolihiisa cunay oo kaa dhiiggiisa wax ka daadiyey ayuu yimi dabeetana ajarkiisii baa dadka loo qaybiyaa buu nebigu leeyahay ilaa wax kaloo aad ku daynbaxdaa ma jiro maalku aakhiro waa intii ajar aad shaqaysatay waa salaadii waa sakadii waa soomkii waa intii xasanaadkii aada shaqaysatay dee daynna waa lagugu leeyahy daynbaxa aakhira marka waxa weeyaan waa ajarkaa la guraya hadduu dhammaado maxaa la yeelayaa markaa wuxuu nebigu tilmaamay qaar wuxoodiiba inay dhammaanayaan intii uu soo shaqaystay dad baa loo qaybiyey welina qaar kaloo wax ku leh baa taagan qaar kaloo weli wax ku leh ayaa taagan wuxuu nebigu tilmaamay kuwa kale dembigoodii inuu dhigantaa ajarkuu kaa qaadan lahabaa laga soo qaadaya adigaa lagu saaraya isaga dembigii baa laga nuqsaamiyey adigana wax laguu kordhiyey dunuubta kuu biirtay sayi-aadkii baa lagugu sii biiriyey nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay kaas ninkaabaa ah caydh haddaad rabto iyo nin khasaaray kaas baa ah ayuha alaxiba
waxaynu u baahannahay waxaanaynu saydhsaydhinayna waa xoolahaagiiyo inaad ilaaliso. ceebaha dadka intaad ku mashquuli lahayd inaad adigu ceebahaaga ku mashquushid. qole heblaaya caynka iyo nin hebel baa saatan iyo bal adigu isbaadhbaadh. imisaad ceeb leedahay, imisaad nuqsaan leedahay, imisaad adigu isbaadhbaadh. Anas ibnu Malik baa waxaa laga sheegaa wuxuu yidhaha magaaladan Madiinaan anigu soo gaadhay oo duul lam yakun lahum cuyuub han ceeb lahayn ay deganaan jireen. facaabu nnaas dabeetana dadkay markii dambe ceebeeyeen fasaarat lahum cuyuub buu yidhi. waxaan soo gaadhay buu leeyahy aqwaaman kaanat lahum cuyuub, qaar ceeb lahaa laakiin dadka iskaga aamusay oo aan dadka ceebtooda sheegin oo iyagana ceebtoodii la ilaabay buu yidhi. ayuha alaxiba, ay culammadu yidhaahdaan waxyaabaha waxa kan daawada u ah ee lagaga fogaado waxaa ka mid ah inaad meelaha goobaha fiican fadhiisatid, dadka saalixiinta ah iyo dadka khayrka hadal haya aada la fadhiisatid oo iska daysid majaalista had iyo goor sharka lagu hayo iyo kuwa bataalinta ee camal kale ay meelahay fadhiistaan. waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa jaliiska saalixa iyo jaliiska suu-a waxaa u dhexeeya, faraqa u dhexeeya buu nabigu tilmaamaya. waxaa fiican inaad akhridid taraajimta iyo taariikhda iyo manaaqibta dadkii saalixiinta ahaa iyo dhaqamadoodii. nabiil baa laga sheegaa inuu leeyahy maqtabtu musliman mundu calimtu ana allaha xarama algayb. qof maan xaman buu yihi sidii aan u ogaaday xantu inay ceebtay, inay xaaraantay si aan u ogaaday cid maan xamanin. Fudayl ibnu Ciyaad baa wuxuu leeyahay taabicigaa weyn baa wuxuu yihi waxaanu soo gaadhnay dad hadalkooda jimce ilaa jimce la tirin karo oo la xifdiyo. yacni toddobaad dhan intii eraya uu kugu yidhi waad xifdiyi kartaa buu leeyahy, jimca dambe waad sheegi kartaa toddobaadkaaba wixii uu ku hadlay siday u yaraayeen. xarmala nin la odhan jiray wuxuu yidhi waxaan maqlay ibnu wahab sheekhii la odhan jiray ayaa wuxuu yidhi waxaan sidhi buu yihi war xanta saad isaga daysaa. waxaan ballan qaaday buu yidhi haddaan qof xanto inaan maalin soomo. soontii baa baktiga iga dhigtay buu yihi xantii waa xantaa haddana soon, waa xantaa haddana soon. maalintii dambaan idhi buu yidhi war maya, soonta waxaad uga lexe jeclo badantaa jirtee markaan waxantaba dirham baan bixinaya. adigoo yidhaahda markaan waxantaba $10 baan sadaqa u bixinaya. dee markaan arkay jeebkaygii oo maranaya buu yidhi xantii waa iska daayay. markay noqotay bixi oo bixi oo bixi waxaan arkay buu yidhi jeebkaygii oo dalooshamay. dabeetana waxay noqotay buu yidhi wadda aan iskaga daaya xanta. inaan xan iska daayo waxa keentay buu yidhi markaan idhi buu yidhi wax bixi. ayuha alaxiba, nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamaya haddaad dadka ceebahooda ka shaqaysa adna ilaahay inuu ku fadeexadayba. u fiirsa uun qof kastoo ceeb badana ah oo dadka wax ka sheega aakhirka wuxuun baad arkay isagoo ay isaga dacallada haystaan oo qaar badan ay wax ka sheegayaan. saa daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyahay yaa macshara man aslama bilisaanihi walam yufdi liimaanu ilaa qalbihi. waar dadkiina kan carabka uu ka islaamay ee aan iimaanku qalbiga ka gelinow laa tu'du lmuslimiina walaa tucayiruuhum walaa tattabicuu cawraatahum. war dadka muslimiinta ha dhibina oo ha ceebaynina oo ceebahooda ha raacraacina. fainahu man yatabic cawrata akhiihi lmuslim, qofka dabagala un qofka walaalkii ee muslimka ah ceebtiisa yatabic illaahu cawratah, ilaahay baa isna wuxuu dabagalaa cawradiisa iyo ceebtiisa. qofkii ilaahay ceebtiisa dabagalana yafdaxu walow fii jawfi raxli, gurigaaga bartankiisa joognaya ilaahay waa ku ceebayn. haddii rabbi subxaanahu wa tacaala u fiirsa un dadka wax ka sheega inta badan
آخر كينا ويفدحدوا بانو ينا قار كالون با إلهي كو يتحاما وفدحدوا باكو صوبحضا ولذلك وحا هبون عبتين حنت يسكدي صديق له أدونك عقابك كوغو إيمان وحباشي كوغو إيمان عذاب القبر وحا كمدا نبي عليه الصلاة والسلام قال مصامري مركز يقول اللي بدأ ولا عذابية وحوين اللي عذاب وحوين ما هدب وين ما يقرين يعني وحنا يسكد ينكرين وين ديسه نما هو حلو عذابية أبيكم فسرنا علماء مدي كذا إنه يسكم ما يريشرين ككلنا وحبوا حمن شري حديثنا ما شيكت أنا واجرته لكن رواية أنا واحد شيء يسا غيبة حنبا سنة اللي عذابية إذا أدونك حنتو أدونك واد كفدي حدوبي أدنى حباشة مركا تكتنوا لجوج عذاب يا آخرة مركا تكتنوا كورنا إيانا نار بات كوكلي والنبي عليه الصلاة والسلام معراج كمركي لك حيي وحي صار كي وحكم إذا قاربان أركي بيقول عديا نار له وسائس حجنية ووجهي لابتو ضديرية مركز أنا يقول جبريل وقواني محايا هاي مركز وحولي وكوي هلب كدتك عون شري يعني وكوي دتك حمن شري إيجا نسد بع عذاب كود النقونية ويقعون في أعراضهم بكت المامي وكوي هلب كدتك عون شري عرض جودا كل شري أيها الأحبة ها بنقفك مسلم كاهي بحورنا إنه كتوبت كيرو وحد مرة إنه سكيل عليه حنتو إنه حارانتي وودة تقانين لكن هنجي نكون علني عاوة وهضيا أنا وهضيا يبغى كين بدل ما هين المعلومة علم عصبي دي شيء ما هي وواحد تقانين حنتو إنه حارانتي قف كستو مسلم هو يغني سما وواحد يغني لكن واحد حسوسنا إنه ورسبي إنه فضيت سنيه عقاب كل الباكار رتب ميسه أدون له وحبال له وآخرة له انتبه إلهنا وحينا لي وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون والمؤمنون لما أنتين إلهي وطوبتك توبت وكو علماء ينو شيء جري حديث النبي وهو الريا الندم التوبة إن تكمر وتوحي هراك عدعي حماها كمر وتو إن توبتي إن كمتي توبتي إن تكفقه ووحي ما نسكوض يا هدنا وان توبتك أنا قروح بدني توبة نصوحة وحا وحي مركات كفقه وعلماء وحي كلوت المام جرينا يكمتها أخيرا مركات وحا صودا هدي كصاب سيسنتي بني آدم نينة استحلال ويديسته حولت ضد يدع يو عردو هدي وحا طهينا إناد ويديسته إناد كحلال وريع فينا تلاذو نبي عليه الصلاة والسلام حليه من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو من شيء فليتحلله منه اليوم ورنكي ذلميي ولالكي يا ما شرفتي ذلميي أما لا فيه سوحك لك الذلميي يوم ورمك ويديسو إنه حلالك النقطين إنه كعفيه هذا ويديسو انت انا ايمانين مالنا درهم يدي نارتون جرين بو نبي لي مالنا خوله waxtarin iyo wax kale inta ana iimanin hada weydiiso wa maalinta amalka uu noqonayo waxa lagu dayn baxa inta ana taasi iimanin hada weydiiso buu nabigu leeyahay alayhi salaatu wasalaam culimadu waxay yiraahdaan si guud hadaad weydiisan karto way fiicantay waxaanu hadaad u sheegto inuu ka sii cadhoodo dhib kale sii keenaya haday tahayna way fiicantay inaad u sheegto haday si mushkilad kale sii abuurayso oo waxaan hadaad sheegto bal kale ka sii ratibmayso waxa ka roon bay yiraahdaan inaad waxba u sheeginay inaad ilaahay isagana dambi dhaaf u weydiiso inaad ilaahay subhanahu wa ta'ala isagana dambi dhaaf u weydiiso ilaahayna subhanahu wa ta'ala aad uga toobad keentid هذانا ضادو وحمان حدنا هدقيسن
dadku ina way dhegaysataa ina warkay akhridaa adigu majliska ha camirin oo ha odhanin xantaan anigu waa iska aamusanaa une iyagaa warka waday iyana ku anfici mayso ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay waqad nazla calaykum fi lkitaabi an idaa samictum aayaati illahi yukfaru biha wayustahzahu biha falaa taqcuduu macahum xataa yaquuduu fi xadiiثin gayr inakum ida miluhum in allaha jaamicu lmunaafiqiina wاlkaafiriina fi jahannama jamiica qur-aanka waxaa soo degay baa ilaahay leeyahay haddaa meel maqashaan fadhidaan ilaahay aayadkiisa ama laga gaaloobaya ama lagu jeesjeesaya ama dee la dhinac marayo waa meel dembi ka socdo ha sii fadhiyin baa ilaahay ku yidhi ee iskaga tag haddaanay warka la akhriyayna warku uu dembi yahay dembigaa golihiisa waxba ha sii fadhin waa laba mid un bay culammadu yidhaahdaan inaad radin karto tidhaahdo waryaa waxna wadaan waa dembiya inaga daaya inaad radinba karin iskaga tag marka ha sii fadhiin majliskaasi haddaad sii fadhido waad la mid noqonaysaa nebiguna wuxuu leeyahy man daba can cirdi akhiihi bilgayba kaana xaqan cala allahi an yactiqahu min annaar qofka walaalkiisa muslimka ah difaaca isagoo maqan nin baa la maagaya war nabadgeliya baad ku tidhi waa difaacda ilaahay dartii baad u difaacaysaa inaan wax la xamanin maaha teeni dee uun kuwa reerkiina marka lasoo qaadanaya inaad cadhooto kuwa reerka kalehana inaad ka qayb qaadato taa maaha ee waxaynu ka warramaynaa inaad dembinimada diidan tahay dembinimada inaad diidan tahay walaalkaa haddaad sidaa ku difaacayso ilaahay wuxuu korkiisa isna isa saaray qiyaamaha inuu naarta kaa difaaco kaana xaqan cala allahi an yuctiqahu min annaar idan ayuha alaxiba nusuusta qur'aanka ee ku soo aroortay nebiga calayh isalaatu wasalaam oo meel fadhiya xadiis dheer ayaa nin la sheegay malik ibnu dukshin la yidhaahdo markaasaa mid yidhi daka munaafiqun laa yuxib allaha warasuulah kaasi waa munaafiq alla iyo rasuultoona ma jecla markaasuu nebigu wuxuu ku yihi laa taqul lahu dak war ha odhanin sidaa war miyaad ogeyn inuu leeyahay laa ilaaha ila allah yuriidu biha wajha allah yuriidu bidalika wajha war sawka laa ilaaha ila allah le oo ilaahay wejigiisa u leh markaasay joogsadeen saxaabadii waxay dhahay allahu warasuuluhu aclam amaa naxnu fawallahi laa naraa wuddahu walaa xadiidahu ilaa ila lmunaafiqiin ilaah iyo rasuul baa naga og laakiin ninkaa wuxun baan anagu inta badan aragna isagoo munaafiqiinta la fadhiyo munaafiqiinta la ka dhex warramayu baan anagu arki jirnay bay leeyihin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sheegay markaa war ninka tawxiidsada ee ilaahay wejigiisa ku raadinaya ilaahay naarta waa ka fogeeya waxay tilmaamaysaa in dadku ka dheeraado xanta mararka qureel ay inuun bannaanaan karto laakiin dadka badh baa inta badan intay u raadiyaan qiil mararkaasi awrkooda ku kacsada war hadda aakhira kaa dambaysa ilaahay maxkamadiisiina waa dambaysa mararka qura inuun ay bannaanaan karto waxay idhaahdaan waa haddaad maxkamad ka ashtakoonayso kale oo ilaahay qur-aanka wuxuu leeyay laa yuxibu allahu ljahra bisuu'i min alqowli ilaa man dulim dee markaad ashtakoonayso waxaad sheegaysaa wixii lagugu sameeyey waana laga yaabaa inuu isagu diidan yahay waxa in la sheego laakiin markaan xaqaagii inaad dhacsato qaadi muslima baad leedahay waxaasaa igu dhaco saasaa laygu sameeyey markaa waa bannaantay bay culammadu yidhaahdaan oo waa kuwa xadiidku sheegayo layu lwaajidi yuxillu cirdahu wa cuquubatah ninka dadka xoolaha intuu ka daynsaday isagoo xoolale meermeeriya in la sheego oo cirdigiisa wax laga sheego la yidhaha waana meermeerinaya wax iyagibuna siin la-ya ama qaadigu cuquubo saara waa bannaantay buu nebigu ku tilmaamaya mararka qura ay dhici karto inaad sheegtaa waxaa ka mida bay idhaahdeen alistiftaa fatwaad rabtaa si kalena kuma sheegi karti laguguma fatwoon karo inaad leedahay dee aabbahay baa i dulmiya ama walaalkay baa i dulmiya ama waxan baa igu dhacay maxaan sameeya waa fatwa doonaysaa diiniga laakiin waxay yidhaahdaan mararkaasoo dhanna inta qardiga inta danta fulinaysuun baad sheegaysaa dee iska wadi maysid yacni inta fatwadaadu ay kuugu ansaxayso in si saxa lagugu sheego ama
wixii ay isku hayseen lagaaga garnaqayo ba jee laakiin wuxuu sameeyo dhan meelaha kale ka sameeyaa dad soo tiriso dee ma aha baabkii laga reeday marka waxa laga hadlayaa waa dantaada tan marka wixii aad ku gaadhi lahayd inay tahay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam hinda ayaa u timi hinda bint cutba waa gabadhii uu qabay abu sufyaan saxaabigii la odhan jiray abu sufyaan waxay ku tuhmaysaa inuu yaro gacan adag yahay waxay tihi ilaahay rasuulkiisiiyow adaygu dee waa gacan adag oo nama siiya anagii carruurta wax nagu filan annana dee markuu na siin waaye marmar baanu ka qaadnaa marka waxay sheeganaysaa inay wax ka yaro qaado ee xaalka iyagu muxuu yihi khudi maa yakfiiki wa waladiki bilmacruuf buu nabigu yidhi inta biilka adig iyo carruurtun ku filan ka qaata buu nabigu u tilmaamay marka muu odhanin ninka maxaa dabacalnimo ugu sheegaysa waxaase dee intan ay sheegtay waxay ku rabtay fatwo in loo sheego oo may rabin ceeb kale dee waxay rabtay waxan yare ay ka qaadaysa inay u bannaan tahay iyo inaanay u bannaanayn waxay dhahdaan mararka qura ay bannaantahay waxaa ka mid ah takyiiru lmunkarka munkaraad meel ka socdaad aragta waad adigu ma radin kartid dee haddaad booliska u tagto tiraa war meesha waxa lagu hayaa rabshade wax ka qabta waa iska bannaantahay bay leeyihin ilan waa ciddii wax ka qaban karaysay laakiin intaa in ka badan munkarkaa un si loo radiyo hadday tahay ka badan ha sheegi waxaa la mida bay dhaheen nasiixo guud oo dadka muslimiinta waxaad kula naseexaynayso laakiin waa markay naseexo tahay ee maaha markay ceebayntahay maalan gabadh baa nebiga u timi calayhi salaatu wasalaam dabeetana 3 nin oo xodxotay bay u sheegtay waxay tidhi hebel iyo hebel iyo hebel baa guuriga rabee kaa guursadaa bay nebiga weydiisay nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu rabaa kay guursan lahayd inuu sheego hebel buu nebigu ku yidhi waxba ma haysto waa mucaawiya ninkii boqorka marka dambe noqday nebigu wuxuu yidhi hebel farajulun taribun laa maala lahu waa ciiddu ku dhegsanyay waa sacluuku waxba ma haysto abu jahamna ushuu degta ku sitaa buu nebigu yidhi yacni dumarkuu garaacaa usaamo guursa buu nebigu markaa ku yidhi wuxuu nebigu u tilmaamay nimankii gabadha la hadlay naakaasina waxba ma haysto kanina dumarkuu garaacaa ee kaa kala guurso marka erayada wuxuu nebigu u sheegay bay leeyihiin nasiixatan lihadihi اlmar'a gabadha tan oo u naseexaynaya inay mid khayr qaba guursato ama mid nolosheedu isugu baxayso inay guursato culamadu waxay kaloo sheegaan ninka isaguba la banbaxaa ceebta kaana waxay yidhaahdaan isagu xan ma leh waa yacni xumuhu banka la jooga dee intuu sakhraamaaba halkaa dhaadhaya waddadaasu maraya waa sakhraan in la yidhahdo dee isagaa ismuujiyey maaha nimay maalinka yaro xumaato oo guriga iskaga qarsan jiro oo dabadda usoo yaro baxay maaha laakiin waa xabagale halkaa iska jiifa waa midaan ceebta qarinaynin ee isba mujaahir ah waxay yidhahdaan almujaahiru binafsih almustaclim bibidcatihi aw bimacsiyatihi kaas bay yidhaahdaan culamadu xan ma leh waa kii uu nebigu lahaayo kale bay dhahaa bi'sa akhu lcashiira wa ibnu alcashiira mid baa guriga nebiga kusoo garaacay dabeetana hore laga furi waayey markii dambaa la eego nin aanu nebigu doonayn buu noqday nebigu waanu ka furay waanu soo dhaweeyey laakiin caaisha markuu ka furayey buu wuxuu ku yidhi nebigu bi'sa akhu lcashiira yacni waa eray la tilmaamayo inuu nin xun yahay bale nebigu wuxuu u tilmaamay ina shara الnaasi man tarakahu الnaasu aw wadacahu itiqaa'a fuxshi dadka waxa u shar badan kay dadku u weydaartaan afxumadiisa iyo dhibtiisa inay ka weecdaan dadka badh baa jira hadduu kaa soo rubaxaad is leedahay war iminku ku caayi doonaa ee iska dhaaf xagga ka mar ama iminku wuxuu u sheegi doonaa markaa nebigu wuxuu yihi dadka waxa u shar badan kay kuway dadku isaga ilaaliyaan xumahooda daraaddeed kuwaasoo kale bay culamada qaar yidhaahdaan xantiisu armay bannaanaan kartaa waxaynu leenahay wardan oo ku badda mooyaane iska ilaali waxba qiil ha kusii banbanaysanin
xataa haddaad ka tagta kaa laftiisa dee dembi kaa raaci maayo dembi kaa raaci maayo adiguna si aanad dadka kale muslimkaa god ugu ridin mawaadicu tuhumaa iska ilaali adiguna meelaha la isku tuhumaysto ha tegin oo nabigu calayhi salaatu wasalaam habeen baa isagoo muctakifa masaajidka iska ictikaafsan ayaa haweenkiisii mid ka midi soo booqatay dabeetana cabaar buu u sheekeeyey kadib buu sii kaxeeyey gurigeedii intuu geynayay buu sii kaxeeyey isagoo gabadha la socda ayaa laba saxaabe arkeen dabeetana way degdegeen wuxuu yidhi waar iska jooga waa cid kale maaha waa Safiya buu nabigu yidhi yani iyay sodhanin nabigii gabadhan uu la joogay iyo ma aysaanay qalbigoodaba ugu dhicin ayuu nabigu wuxuu leeyahay war waa heblaaye iska jooga buu nabigu tabi calaa rasulikum innaha Safiya bintu Huyay saxaabadii waxay dhahdeen subxaana allah ya rasuul ilaahay baa xumo ka hufan maadaama ku tuhmaynaa bay deeleeyeen dabeetana nabigu wuxuu yidhi war shaydaanku bini aadamka dhiigu dhex cararaaye iska socda buu nabigu u tilmaamay idan waxay culimmadu yidhaahdaan adiga laftaaduna inaanad mawaadicu tuhmaha tegin ayaa muhiima waqtigii salaadku uu dhow yahay waxaan kusoo koobaya waxa weeyaan ma filayo waxaydan aqoon inaan sheegay intan aan sheegayba waa in culimmadu idinku celcelin jirtay hore u taqaaneen waxaanse u doortay inaan caawa sheego haddana mar kale idinku celiyo in dhaqankeenu wax iska bedelaan diintu markay noloshaada wax ka bedelaysay diin tahay oo qiimo leedahay marka kale aday xujo kugu tahay cadaabkaad isu sii biirinaysaa marka kale waxay qiimo samaynaysaa markay noloshaada wax ka bedelayso waxay leenahay markaa nolosheenna waxa ka bedesho carabkeenna wixii ka soo baxaya nabigu wuxuu yidhi war ninkii ilaahay iyo rasuulkiisa rumaysanow ninkii ilaahay iyo maalinta qiyaamo rumaysanow buu nabigu leeyahy man kaana yuuminu billahi walyawmi alaakhir falyaqul khayran أو ليصمت ورما خير كو هذا لما إسكام النبي عليه الصلاة والسلام وحيات سلادة خير ما كهليس هذا وحيات سلادة خير كهلي ميسي إن هذا مستابق في عن وحيات سلادة هي خير كهلي ميسي نلاش نوات كلا قرنيسا واحد سلادة وخيريه وحن خير هاي قفولي بوا قرنيا حن خير لقى هلايا حن خير لقى هلايا taladii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa weeyaan qofkii ilaahay iyo maalinta aakhiro rumeeyo wixii aan khayr kuugu jirin iskaga aamo ama khayr ku hadal ama aamo carabkaagu oo nicmo ah oo cadkaa yare halkaa ku jira ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kugu galladay oo aada makhluuqa kale oo dhan ee dunidan noolaha inala jooga aad kaga gadisanti carabkaasi hadduu ku go-o ama ku xanuuno ama dee waxaa kaa xidhmaysa hadalkii oo dhan bini aadamna waaba hadal qiimahaaguba hadalkaasa ugu badan ilaahay ha ku caasinin ee ilaahay ugu mahadnaq ku wardi qur-aan ku akhriso dadka waxsan ugu sheeg wixii sharana ka hayso kelmaddan caawo dhan wadnaa waa intaa sala allahuma calaa nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam allahuma اغfir dunuubana warxam mawtana اللهم اغفر ذنوبنا وارحم موتانا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين